Kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa waxaa la sheegay in ay gudaha dalkaas ku dileen muwaadiniin Soomaaliyeed kana mid ahaa dadka ku ganacsada halkaasi, iyaga oo goobta ka baxsaday. Muwaadinkan Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Ganey ayaa waxa uu dilkiisa ka dhacay tuulada Khayeltiisha oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in kooxda burcadda ahayd ay muwaadinka Soomaaliyeed ku dileen dukaankiisa oo ku yaala laanta Sidaba, iyaga oo sidoo kale dhac u geystay dukaanka. Ciidamo ka tirsan booliiska dalka Koonfur Afrika ayaa gaaray halka dilku ka dhacay, iyaga oo sameeyay howlgallo ay ku baadgoobayeen dadkii ka dambeeyay dilka muwaadinkan Soomaaliyeed ee ku sugnaa goobtiisa ganacsi. Waa muwaadinkii labaad oo Soomaali ah oo toddobaad gudihiisa lagu dilo dalka Koonfur Afrika, waxaana 4 cisho ka hor koox burcad ah ay ku dishay tuulada Filibi muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Axmed Xuseen Cadow.